Dhismaha xarunta dhexe ee Wasaaradda Waxbarashada Galmudug ayaa laga bilaabay dhismaheeda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Goobta laga dhisayo xarunta dhexe ee Wasaaradda Waxbarashada ayaa hore waxaa u deganaa dad shacab ah, sida uu sheegay Gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb, Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed. Halkaan dad deganaay shacaba ilaa xilligii dawladda ay dhacday. Guriyay ka dhisteen. Kuwii hore dawladdu lahayd waa iska deganaayeen. Laakiin dadkii hadda maamulka caasimadda ayaa meeshii ka raray iyadoo wax dhiiga ku daadan wax dhibuhu ka jirin iyagoo ku raaliya waxa la meeshan shaqada dawladda iska lahayd dawladdiyaana ku shaqo qabsanaysa intii hore ku deganaydeen Allah idin calfo haddana ka guura waana aqbalaan runtii ku wada alaabtooda raranaya si nabad ah ku guureen waa uga mahad celinaynaa runtii amaama naas dadka waxaan markaa u soo jeedinaynaa marka hore wasiirka waxbarashada oo runtii hawla dardar culus ah Galmudug ka dhaxwada oo xagga waxbarashada ku saabsan waa u mahad celinaa iyo madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda oo runtii iskala shaqeynaya barnaamijkan ay hay'adda arrintan naga gacan siinaysa. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa sheegay in dhismahan uu ka qayb qaadanayo bilic soo celinta caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana uu mahad celiyay cid walba ee ka qayb qaadanaysa dhismaha xaruntani. dhammaantiis ayaa maanta la isku furayaa si guri macnaha dabaq ah oo shaqaalaha iyo xafiisyada dhan ku filan loogu sameeyo burburintii socota dadkii shacabka ahaayoo deganaay horay ugu sii nacfinayay ee ka guurayna aaday u mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa in maadaama meesha uu ku yaalo ilaamiga saaran tahay oo fiyaale ay tahay ilaa gadaalna oo u ballaaran yahay inay magaalada bilic soo celinteeda iyo quruxdeedana ay ka qayb qaadanayso intaan bal gaarinba inay wasaaraddu capacity-geeda iyo tayadeedii inay sare u qaado haddana magaalada bilicdeeda ay qayb ka qaadanaysaa qof kasta inuu hawlaha socdo oo horumarinta magaalada ah dhalinyaro ha noqoto maamulka cid kasta inay ka qayb qaadataa la rabaa sidii magaaladan bal bilicdeeda iyo horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa wasaaraddu ay u dhismi lahaayeen. Xamdi Dhool, Hirshabelle TV, Jowhar.